dugsiye oo maanta shir jira ay qabtaan kaga hadlayo soo dhaweyntii ugaaska iyo xaaladaha dhibaatooyinka kale amni darrada ay abuurayaan qolooyinka ka soo horjeeda ugaaska dawladda xaqan fariimo digniina ama uga dalaya tusaale oo ka saaray xagga nabadgelyada iyo arrimo kaleba wuxuu ku bilaabay hadaladiisa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa baada saxaafadda sida macaan ee wanaagsan xushmada leh ay u soo bandhigaan wararka ugaaska beesha Gadabuursi way maasan yihiin waxaan kala mahadnaqayaa saddexda dhaadhaar macadaasi makaahiir iyo habar cafaan sida quruxda badan leh ee xushmada ah ee xurmadu ku jirto ee boqolkiiba 99 u soo dhaweeyeen ugaaskoogii in gudoomiyahooda ugu sareeyay ee beeshaas Gadabuursi ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Boorama ay sugeen 7 aroornimo ilaa 2 dharaarnimo ayna qada kirsan ay u noogu soo baxeen ee xushmadu ku jirto iyana ugu mahadnaqayaa ragooga dumarkooga gabdhahooga wiilashooda waad mahadsantihiin anoo ku hadlaya afkii ugaaska beesha Gadabuursi iyo kayga gaarka ka gudida qabaqabada waxaan leenahay ilaahay hayna garab galo midnimadeena Allah adkeeyo maanta waxaan muujiseen midnimada Allah inuu adkeeyo leeyahay waxaan ka hadlayaa oo sheegaya waa nasiib darro qaran jab bay ku tahay in nimankii ugu dhadhawaa madaxweyne ku xigeenka maanta lagu qabto calamadii Awdal State waa nasiib darro waxay garan waayeen xagga u socdaan iyo xagga ka socdaan naaguusiga garanayna gudaha iska gubtaaba la yiri kuwaas gudaha iska gubeen madaxweyne Siiraayar waxaan leeyahay waxba halka ka soo socday in dheer oo lahaw waxa kamid ah waa loo wada ogyahay in jaamac sabta waxa uu walaalayaa Soomaali weyn iyo walaalayaa in adeerkii ninka biilka siiya waa loo ogyahay inuu hiil qaran u ka yahay madaxweyne waloogiya anna ku farta xagga iyo soo gudaawo laha madaxweynaha ragaasi iyo ugaaska wadaaya iyaguba waa Awdal State alxamdulillah rabbil alamin daacadnimada iyadoo nahay Soomaaliland iyo ujeedada aan midnimada ka haysano darteed ayaa khashbaadaas ku dhacday madaxweynaha waxaan leenahay guddi gaar ah loo soo diro arrinka loo xirsaaro waxna laga qabto ama darrada halka ka jirta uu asaasayo uu ka yahay madaxweyne ku xigeenka iyo ninka la yiraahdo Sultan Ibrahim Sultan Bayraaniga Sulaadiin baan ilaa Sulaadi cid doortay ma jiro cid matalana ma jiro macdaasay ma matalo hal waxa laga qabtaan leeyahay kooxaha hubaysan wali ma arag nin madaxweyne ku xigeena oo intuu dadkiisa u yeero aqalada weerara baabuurada jajabiya hantidoodana qaatay ilaa intuu inama yar ay maamulaan habeeyaan oo qoryo haysta qori baa lagu dhaxabtay habeenkii jabhad uu ka dhaxaburay magaalada Boorama iyo gobolka Awdalba dawladdu way ogtahay ururada sirdoonkuna way og yihiin madaxweyne Siiraayo waa maansan tahay hadii aanad maanta adigu amarka bixinna arrintaasi waa fiiro dheer waxa loo yeeshay arrinka waxna laga qabto anigu waxa ku jira beesha macadaasay waxa sameynaysa waan ogahay xogtooda waxa laga qabtaan leeyahay waxaan kale oo sheegayo halka ka cadeynaya madaxweyne ummadda aday ku dooratay adiga ay ku dhaarisay ilaahay baan ku dhaarinay waxaan ku leenahay gobolka ninkaasi hadeediyaanad ku halay gobolka Awdal ninka madaxweynaha ku xigeenka ku halay ciidad wixii saar adaan kugu kalsoonahay adaa ummadda u dhaartay arintayada wax ka qabo amniga haday tahay horumarka waxa ninka naga halaysa ma jiro waa inaad emiseer gaar ah loogu magacoodo oo gobolkaasi daniisa kala sii oo toos adigu waxa ku waxa kale oo aan sheegayaa in dacdooyinkii u dambeeyay ila ma imkan nin loo soo qabtay ma jiro maalkaygiiba maqan alaabtayga arqaladeedii baa la jajabiyay waxa taanayna wax laga qabtaan la doonaya waxa kale oo ugu bishaareynaya ummadda reer Awdal ee rag iyo dumar qabiil kasta u soo banaan baxday in u soo banaan baxday ugaaskooda soo dhaweynteeda baxbar muuse haddaan nahay boqor baan lahay inay boqorkii baan ugaaska kood shaqayn jiray
boqorkiina maalin dhowaan anaguna magacaabeyna haddaan beesha baabar musanahay waana soo dhaweyn doonaa ummaduna inayna soo dhaweyn doontaa insha Allah taabaan ugu bishaaraynayna waxaan kaloo sheegayaa ugaasku inuu socdaal ku bixi doono anoo ah gudoomiye guddiga qabaqabada inuu tagi doono dhulka Gadabuursigu dhammaan u dego waa socdaal baan ku soo meedir doonaa hal loo soo diyaar garoobo qolada dibadda joogta ee walaalahaya ee dalka dibadiisa ku nool waxaanu cadaynaynaa wixii laynii sheegayay ee nimanka suraadidu ay sheegayeen ee baaburada qarafada ku qarafaystay saldaadku kaday sunnihi sayla iyagoo cagaagan faralkiina diidan inay boorama ku tukadaan shicibkoogii baa beenayay inayna wacnahayna waa la wada og yahay maanta waa isqashifeen allah qashifeen marka waxaan leeyahay waa ugaaskii Gadabuursi yar iyo weyn nasiib baan u helay maanta hal meel walba laga soo dhaweeyay qurba jooga waa ugaaskoogii reer Djibouti waa ugaaskoogii reer in Somaliland waa ugaaskoogii waa in reer Ethiopia waa ugaaskoogii hal soo dhaweeyo ciidamada amniga ee qaybta birmata waliba nig haysta ee tarsida quruxda badan leh wixii la soo abaabulay ee ummadda awdal la doonayay in la isku diro gacanta ku dhigay ee ilama haddana ku faracday wuu mahadsan yahay ilaahay khayr siiyaan leeyahay madaxweynana waxaan leeyahay ninkaasi arinta awoodo hal lagu garab galo waa nin ka quraxatay ee naga maanta naga badbaadiyay inuu dhig ka dhaco magaalada Boorama ama gobolka Awdal waxa kale oo sheegaya labadii nin ee la soo kireystay anigu wasiir Roma khan ee la soo kireystay ee doonayay inay isku kaya diibaan hubka sidii uu sheegay in duqa علماء الدين شيخ عبد الله شيخ علي جوهر والشيخين لما كاسي إن أيسكوك هاي الدراب الدونيين إلهي من نقبت بعدي دقنك وحبك ما يقعنان دينتنا وحبك ما يقعنان دلكنا وحبك ما يقعنان ددكنا وحبك ما يقعنان والدنبيلية وقرن عيد أي مثلا ما جرتو إن ير أو وزير ناكو حكينا إياه صوكر استي أقبلي ما إنه ومدوينة تشتين الدلرات dadweynaha Soomaaliland dhammaantood ka marxaati kacay caalamka ka marxaati kacay bari iyo galbeed waa loo yahay waxayna matalana ma jiro wax dambe oo dib loogu noqonayo ma jiro wax dambe oo furana ma jiro anoo ka mar hadlaya magaca beesha maxalase waxaan leenahay arrinkaas halkaan ugu fulay nimankaasina xukuumaddu iyo madaxweyne Siiraayo ilaahay cimrigiisa inoo dheereeyo waxaan leenahay wax ka qabo hadda meel kale loo diranayo inay jirin dadkii dhaqanka ka yaqaanay وويناء يرسدين العدين وعقبت الضوني بدي ده حديثي أي دولة صدر في لبده وسيري وصدق قورت لها يو هالكان أنت ورقد آخرين مركز منا السحنين مركز منا كتجي الدكتور أدو عرض مركز منا الاستيجي أترادين إن جاء وجاسك السود ويسنا قلاص ويسوق يدرسي قلاصي ولي ما لحد الدين بس واحد ولا قلاصي بسم الله الرحمن الرحيم قلاصي وحلا قال حكينا ملء ومدي خير أو ضريري يوين بق إياه هذا اللودو دي aad ugu qosnay aadna uga fajacay marka halka baan ku dhaafnay madaxweynaha ilaahay taala wuxuu ka qabanayo